kadib markii warbaahinta dalsan ay baahisay sheekada hooyo Amran Xalane oo ay ka maqnayd muddo dhowr bilood ah gabadheeda Amal Nuur Cusmaan ayaa waxaa soo baxay warar dheeriya oo ku saabsan xaaladda Amal. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hay'adaha amnigu ay markaasi heleen Amal isla markaana ay bad qabto. dhinaca kale xog ay heshay warbaahinta dalsan ayaa sheegaysa in Amal loo dhoofiyay dalka ay dhalashadiisa haysato ee Denmark xilli dambe oo caawa ahna ay tagayso galabta ayaana la xaqiijiyay in magaalada Muqdisho ay ka qaaday diyaaradda Qatar Airways waxayna ku dhooftay travel documents oo safiiradda Denmark ee Soomaaliya oo arrintan Muqdisho u timid ay uga keentay magaalada Nairobi sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan laamaha amniga iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya maadaama uu baasaboorkeedii ka dhumay Amal sida mas'uuliyiintaas ay sheegeen. mas'uuliyiinta arrimahan aan ka soo xignay waxaa kaloo ay sheegeen in Amal ay bad qabto iyaduna ay codsatay sida ay hadalka u dhigeen in dalkeeda loo celiyo oo ay qaangaar tahay xubno ehelka ahna ay uga horeeyaan. dhinaca kale hooyo Amran Xalane oo dalsan arrintan ay wax ka weydiisay waxa ay sheegtay inaysan ku faraxsanayn in gabadheeda lagu celiyo dalkeeda iyadoo aysan ogeyn in ay caafimaad qabto iyo in kale. waxa ayna noo sheegtay in maalmihii dambe ay socdeen dadaalo lagu doonayo in gabadhoodu ay dib ula midowdo balse akhbaartan ay ka heleen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. xogta dalsan ay heshay waxaa kaloo intaas ay ku daraysaa in wariyaal ka socda waddanka Denmark ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay macluumaad ku saabsan arrinta Amal qorayay. Maxamed Cabdi Xasan Iidle raadiyaha telefishinka dalsan Dhuuso Mareeb.